saako bisha tahay 14 bishii 12 sanadka 2017 waxaan hambalyo iyo taaniyad u dirayaa madaxweynaha jamhuuriyadda Soomaaliland oo shalay loo dhaariyay shanta sano soo socotay inuu madaxweyne ka noqdo ama hogaamiye ka noqdo jamhuuriyadda Soomaaliland iyo madaxweyne ku-xigeenka Cabdiraxmaan Cabdullaahi Ismaaciil Saylici oo madaxweyne ku-xigeenka labaad ee isna ku guuleystay doorashadii haddaba waxaan noo bilaabatay in aanu dhisno oon habayno oo rajadii Soomaaliland ay halkeedii ka sii socoto waxaan kaloon shacbiga kulmiye taageerayaasha kulmiye ugu baaqaya guusha ay gaadheen inay tahay guul ay ku badbaadinayeen shacbiga Soomaaliland waxaan madaxweynaha iyo madaxweyne ku-xigeenka iyo hogaamiyahaba ka codsanaya in ay ku dadaalaan sidii ay horumar iyo barwaaqo iyo cadaalad ay u gaarsiin lahayn shacbiga Soomaaliland anoo aaminsan in shakhsiyaadkan la doortay ee madaxweynaha iyo madaxweyne ku-xigeenka ay yihiin kuwa kaliya ummadan u horseedi kara maxay ahayd cadaalad iyo sinaan sababtoo ah labadooduba waxa way laba nin oo aan meesha u joogin dana gaar ah ee u joogay inay ummadooda xuquuqtaan